Asalaamu calaykum asxaabta isku soo laabasho wanaagsan. Waxaan noo socday baryahan koorsadeenii oo dhow. Waxaanu maraynay qaybtii oo sales app oo ah in customer alaab laga iibiyo. Marka cashirkii ka horreeyay waxaan kusoo baranay customer si alaab deyna looga iibiyo. Maanta cashirka wuxuu ku saabsan yahay customer sidee uu looga iibin karaa alaab asagoo kaashkiisa la baxayo. Maanta customer aa noo imaaday, alaabuu naga dalbaday, alaabtii waa siinay, lacaguuna baxshay, deyn ma ahayn. Marka cashirkaasaan maanta rabnaa inaan sharaxno. Waxaa loo yaqaanaa sell order with cash. So si loo sameeyo cash ama cash sell cashirka loo yaqaano, si loo sameeyo iib ayadoo qofka uu bixinayo cash, waxaa la maraa stepskii oo sales la mari jiray. Si waxaa la abuuraa sales app aa la tagaa, order aa la dalbaa, orderkii customerkii productiga orderkii markuu confirm gareeyo, then lacagtaa la bixinaa. Tusaale ahaan, waxaan rabnaa inaan ka gadno Afrax Electronics 3 xabo oo Toshiba laptop Core i5. Marka qiimaha mid walba waa $350. Isku geyn waa $1,050. Marka on cash aan rabnaa inaan uga gadno. Marka waxaa imaanaysa meeshaan invoice markii la dalacayo. Invoice-ka wuxuu la mid tahay transactions-ka oo kii hadda aan soo dhaafnay oo kale oo on account-ga deynta ahaa. Kaliya waxay kaga duwan yihiin qaybtaas transaction-ka marka invoice-ka la daawacayo wuxuu leeyahay meel oo ah pay oo bixi oo account-ka qofka customer-ka lacagta ka qaba ah. Marka deyn hadday tahay meeshaas waa laga tagaa. Haddii deyn ahayn oo lacagta customer-ka uuna siinayo oo maanta cash uu wax ku gatay, pay aan leenahay. Marka waa arki doonaa. So transaction-ka marka invoice-ka markii la daraco transaction-ka wuxuu saameyn doonaa 4 meelood saameyn doonaa. Waxaa badan doona cash on hand-iga oo ah lacagta gacanta lagu hayo merchant-iga account-ka merchant-iga wuu badan doonaa. Ileen customer-kii wax uu iibsaday lacagtiina wuu iska dhiibay. Deyn account receivable meeshan wuu ka baxaa. Haddii deyn uu ku qaato iska baxo account receivable-ka badanayo oo qofkan deynta ku leenahay. Laakiin maanta lacagta wuu bixishay account merchant-iga wuu badan doonaa. Waxaa badan doona product sale ama revenue-ga, inventory-ga wuu yaraan doonaa. Waxaa kaloo badan doona cost of goods sold. So waxaana ogaataa cost of goods sold iyo inventory-ga waxaa saameyn doona cost price-ka oo ah $250. Calaa xabo waxaa kusoo gadnay $250. Kuwaana saameyn doona. Laakiin marka ay tahay product sale iyo account receivable ama cash hadday tahay, waxaa saameyn doona $350 oo revenue-ga. Cashirka ku xiga waxaa waaye refund cash sale. Customer-kii alaab soo celiyay, cash uu ku gatay, qaabka loogu celin lahaa lacagtiisa. Cashirka ka hore waxay ahayd customer-aa alaab soo dalbaday. Alaabtii deyn uu ku qaatay. Deyntii wuu soo celiyay alaabtii. Deyntii aa ka yaraanaysa. Laakiin maanta waxaa la rabaa customer-kaas alaabtii uu cash-ka ugu gatay in la celiyo oo lacagtiisa loo celiyo. Marka steps-ka la marayo waxay ahaayeen 2 xabo aa la mari jiray 2 step. Kow product-iga in la celiyo, inventory app in la tago, operation, transfer, receipt ma deliveries waaye. Meeshaan receipt aan dhihinin deliveries waaye. Choose order number-kii date-kaa dooranay, alaabta saas aa ku celinay. Step-ka labaad aa maraysidna waxay tahay credit note oo ah inaa accounting app tagtid, customers aad tagtid, credit note aad sameysid. New customer-kaas invoice date-kiisa iyo alaabtii iyo lacagtii uu soo celiyay aa u celisid lacagteeda. Tusaale ahaan, transaction-kii hadda u dambeeyay oo Afrax Electronics ah oo naga gatay 3 xabo oo Toshiba laptop Core i5 ah oo $350 ah halkii xabo ahaa ayaa wuxuu soo celiyay 1 xabo noo soo celiyay oo ah $350. Marka $350 markii loo celinayo waxay ka goyn doontaa cash on hand-iga ka goyn doontaa. Marka transaction-kaas wuxuu saameyn doonaa waxaa yaraan doona cash on hand-iga. Waxaa kaloo yaraan doona product sale-ka wuu yaraan doonaa. Product sale-ka wuu yaraan doonaa oo revenue-ga. Waxaa meeshan badan doona only inventory-ga. Cost of goods sold also wuu yaraan doonaa asna. So markaas la sameyn. So waxaa imaataa Odoo account-kaada imaaw. Waxaan rabnaa inaan isla ogaano qaybta our accounting app. Aan iska fiirino try balance-geena. Okay, meeshaan waxay naga saaran tahay year ka dhig. Waa kana 151,334. Marka transactions-ka markaan sameyno waxaan rabnaa inaan isbeddelka ogaano. Waxaan tagaynaa qaybtan sales app, new dheh. Waxaan rabnaa inaan gadno Afrax Electronics
saddex xabo oo Toshiba ah. Toshiba Core i5 saddex xabo. Okay, saddexdii xabo waxay isku noqonayaan 1,050. Waxaan leenahay orderkan gudbi, delivery-ga tag. Delivery markaad tagtid alaabtan warehouse out waaye. Saddexdaas xabo aa lasoo dalbaday. Validate. Marka Bono number kusoo laabo. Waxaa ogaataa meeshan quantity saddex xabo aa la dalbaday, saddex xabona waa la deliver gareeyey. Marka waxaan rabnaa inaan dalacno invoice-kii. Waxaan leenahay create invoice. Create regular. Okay. Waxaan leenahay confirm aan leenahay. Waa dalacnay hadda invoice-kii waa dalacnay. Haddaan meeshaan uga tagno waxa uu noqon doonaa deyn uu noqon doonaa. Deyn maaha maanta. Customer-ku lacagta uu bixinayo waa ka qabanaynaa. Meesha la gelinayo lacagta waa account-kan merchant-iga ama cash on hand loo yaqaan. 1,050 kaasaa noogu soo darsoomaysa. Waxaan leenahay create payment. Lacagtaas waa la baxshay. Aan tagno marka accounting app-keena aan soo fiirino try balance-geena. Markaad try balance-ga soo geshid hadday wuxuu ahaa 151,000 hadda 154,000. Hadda wuxuu iga yahay yearly iga yahay. Waxaa ka dhigataa monthly si aan isbedelka u aragno. Monthly markaa ka dhigatid waxaa arki doontaa meeshan cash on hand-iga oo soo gashay 1,050. Inventory-ga oo ka go'day 1,080. Macnaha cost price-ka ka go'aya asaga iyo cost of goods sold. Product sale-kana wuu ku darsoomaa 1,050. Marka aan isla sameyno dhacdada labaad oo ahayd in customer lacagtii uu baxshaa u celino. Although waxaan sameyn karnaa anagoo joogno transaction-ki inaan meeshan ka celino. Yacni anagoo tagin inventory iyo mid labadaba inta tagin. Delivery iyo invoice inaan ka celino. Oo dhahno delivery intaan tagno alaabihii la gudbiyey oo macnaha warehouse out-ka ahay inaan dhahno return soo celi wax. Marka waxaa celinaysaa gelinay waxaa leedahay alaab baa gelinayna. Okay. Return. Hal xabo baa celinaya oo warehouse in ah oo bakhaar kusoo laaban doono. Waxaan leenahay validate. Hadda alaabtaas way ka baxday meeshii way ka baxday. Haddaan usoo laabano Bono number-kii usoo laabano. Okay, way ka baxday maxaa la yiraahdaa warehouse out waaye. Meeshan delivery-gana laba uu noqdaa laga rabaa. Delivery-ga laba uu noqday invoice-ka hal waaye. Invoice-kan inaad ka celisaa laga rabaa marka. Instead laba meel aadi lahayd waa shortcut waaye. Meeshan waxaa leedahay credit note alaab celis oo kale iska dheh. Celis. Okay, reverse. Meeshaan aan gelinay quantity-ga la celinayo waa hal xabo. Hal xabo la celinaa. Product sale oo ka go'i doonaa. Qiimihiisana waxaa waaye 350. Waxaa leenahay confirm. Confirm markaan dhahno lacagtii aan laga rabaa inaan qofka u celino maano. Waxaa leenahay pay. 350 waxay ka go'i doontaa cash on hand-iga ka go'i doontaa ee gashay. Create payment. Lacagtaas hadda way baxday oo waxay ka go'day cash on hand-iga. Instead intaan inventory tagno, operation tagno, deliveries tagno, alaabtii haddana soo gashay Afrah Electronics tagno oo return dhahno. Then sameyno accounting app tagno, customers tagno, credit note tagno. Waxaa kaa saacidaya inaad transaction-kii lacagta ku qabatay aad delivery iyo invoice-ka ka celisid. Shortcut waa. Hadda accounting tag, reporting tag, rebalance waxaan fiirinaynaa yacni isbedelkii dhacay. Waa kan hadda meesha waxaa ka go'a ujeednaa $350 ka go'a. Kana 300 waxaa kusoo darsoomaya $50. oo haddaad tagtid meeshan general ledger waa kana ujeedaa sorry waxaa kusoo darsoomaya waxaa ku darsoomaya 250 ileen cost price waa moogta
waxay kala yihiin sell price iyo cost price. Kana waxa uu saameyn doonaa product sell-ka wuxuu saameyn doonaa asana sell price-ka saameyn doono. General ledger isaga waxaa saameyn doona sell price-ka $350. Marka cashirkeena maanta intaas uu ku egyahay. Haddii aad intaas soo gaartay waa ku mahadsantahay daawashada.